ama ma hoos dhigo sariir balse waxa uu saaraa miiska si ay dadku arkaan iftiinka marka ay soo galayaan waxa la wixii la qariyo waxa loo soo saaraa banaanka oo wixii la daboolo waa la helaa oo iftiinka loo soo bixiyaa iska eega sida aad wax u dhagaysataan waayo ku kasta oo waxaysta waa loo kordhin doonaa laakiin kan aan haysan waxa laga qaadi doonaa inta yar ee uu maleynaya inuu haysto macallin hooyada iyo walaalaha ayaa dibadda ku taagan oo waxay doonayaan inay ku arkaan hooyada iyo aabahay waa kuwa maqla erayga ilaah oo adeeca maalin ayaa ciise iyo xertiisii dooni dhex galeen oo wuxuu iyaga ku yidhi aynu gudubno dhanka kale ee harada oo intii ay sii socdeen ayuu isagu gam'ay aaway iimaankiinnii oo iyagu waxay u sii socdaaleen ilaa gadareeni taasoo ku taallay dhanka kale ee harada ee dhanka galiili wiilka ilaah ugu sarreeyo waxaad iga rabtaa waa ku baryayaay haya qaabil waa maxay magacaagu jinniyo qabliyow waanu ku baryaynaaye naartaan loo dirin aynu galno haynta dofarada oo junniyihii way ka baxeen ninka soo laabta oo waxay dhex galeen doofaarrada ka tag meeshan kaagan sixiroolahow naga tag ka tag meeshan naga tag ka tag meeshan waan ku raacayaa meelaad tegtidba aan ku soo raaco adiga ku noqo guriga oo sheeg waxa ilaah adiga kuu sameeyey ciise iyo xertiisii ayaa ku noqday
kulligood ilaa beersaciid laakiin shacbigii ayaa ogaaday tegiddoodii oo raacay galabtii gallinkeedii dambe ayaa butros yidhi sayidow fadlan dadkan iska dir si ay u aadaan tuulooyinka iyo beeraha halkan ah oo ay cunto iyo hooy uga helaan meeshani waa meel cidlo ah adiga qudhaadu si waxay cunaan laakiin waxaan haynaa 5 kibis iyo 2 kalluun waxaa barakadaysan adiga rabbiga ilaahayaga boqorka carshiga oo kibis inaga siiya innaga dhulka waa mucjiso yay ugu sheegaan dadku qaar waxay leeyihiin waxaa tahay Yohana Baptisaha qaar kalena waxay leeyihiin waxaa tahay Elias iyadoo qaar kalena